بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا هدان سكين برانو وحن هيا اسمها ururka TBG أدنى محمد علي أدنى قرن أهنا الصحفيات كهول قشة وسائل ورفافينتا دقنكه يوعي قلنت السومالي لان أن أولا وحن آديات شرف وهينا ونمهد علينا مرتي شرفت كل دون كسر قيب كشيء مناسبة دن قيمها يقايها بدن يعني ما أنت يسكوني ميد كل واحد اللي هذا سومالي حتى هذا شرني بالله السلامة أنا هدي اللي يقول هذا مناسبة تايد السلام هذا حن السلام يا حلبان كي يجيب فردية حلبان برخة شابع بتوم باندين السلام يدين كنا نترى اللي كتير بنشي على أولاً إلهي بمهد لي سبحانه وتعالى سورة قليين إن مناسبة قيمها له يسكوني مادنو مركل بعدنا وحنا مهد علنيا أو نكسر دوينيا مركل بعدنا وحنا نكسر دوينيا برنامج لعيد ولا لها وبرنامج أنا كل عيد سين إنه صدن هبلاد أو أرجعنا فكأ برنامج كان وحمل قليي أو الشرف إياه كرامة بوجهنا لبعض حسب معارض ودني يوعد مركن أنت هكذا markaan inta ka gudbo waxaan jecelahay inaan magaceeda ku hadlo oo una cudur daaro gudoomiyihii ururka TBG ayaan Saleebaan Nuur oo hawlo shaqo awgeed inooga maqan gobolka Saaxil markaan inta ka imaado runtii munaasabadan qiimaha leh ee barnaamijkan aan ku iidsiinayno hablaha aragga naafada ka ah waxaan naga taageeray labada xisbi macaarid ee u cidiyo wadani oo uga mahad celinayno labada gudoomiye injineer Faysal Cali Waraabe iyo gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro gudoomiye Faysal Cali Waraabe wuxuu naga ka fargareeyay $500 oo u dhiganta 10 hablood ciidsiintood waxaana hawsha fududeeyay oo isku xidha ka ahaa xogayaha warfaafinta ee xisbiga u cid Yuusuf Kayse Cabdilaahi markaan inta ka gudbo markay noqoto xisbiga wadanina wuxuu naga ka fargareeyay 20 hablood oo u dhiganta $1,000 waxaana hawsha isku xidha iyo fududeeyaba ka ahaa hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo leeyahay haddii aan information yar oo kooban idinka siiyo taariikhda ururka TBG waa urur ay aasaaseen habla aragga naafada ah oo reer Soomaaliland kuwaas oo ku kala sugan dalka gudihiisa iyo dibadiisa ururkani ma aha urur siyaasadeed mana aha urur faa'iido doon ee waa urur loogu talagalay inuu adeego isla markaana uu codkooda meel dheer gaarsiiyo dumarka iyo carruurta aragga naafada ah kuwaas ay ku gadaaman yihiin duruufo iyo xaalado kala duwan ururkan waxa la aasaasay sanadku markuu ahaa 2019 bishii 9aad waxqabadyadii ugu muhiimsanaa ee ururka noo hirgalay waxa kamid ah 2020kii waxaan munaasabadii Ciid al-Fitriga ku ciidsiinay 20 qof oo iskugu jira dumar iyo carruur kuwaas oo ku kala sugnaa laba gobol oo kamid ah gobolada Soomaaliland sidoo kale munaasabadii Ciid al-Adxaaga waxaan ciidsiinay 50 qof oo iskugu jira dumar iyo carruur aragga naafada ah kuwaas oo ku kala sugnaa 4 gobol oo kamid ah gobolada Soomaaliland isla sanadka 2020 waxa noo hirgashay xaflad maalgelin ah oo aanu shaqo ugu abuurnay 11 hablood oo aragga naafada ah kuwaas oo ka kala socday 4 gobol oo kamid ah gobolada Soomaaliland isla sanadka 2020 waxa Ilaahay nagu guuleeyay oo noo qabsoontay xaflad aroos wadareed ah taas oo aanu ku yagleelay 3 qoys oo ah aragga naafada ah isla sanadka 2020 waxaanu deeq lacag gaarsiinay 10 carruur ah oo aragga naafada ah markaan nimaadno sanadkan 2021 bishii Febraayo 25teedii waxaanu jeekin caafimaad u sameynay anagoo kaashanayna muasasada Al-Nur Charity Foundation 25 carruur ah oo aragga naafada ah isla sanadkan 2021 oo bishii afraad noqonaysay bishii barakeysneed Ramadaan waxa noo suura gashay Ilaahayna nagu guuleeyay inaanu 450 qoys oo naafada qaybaheeda kala duwan ah u sameeyno barnaamij afurin ah oo ugu magac darnay naafakaab barnaamijkaana waxa naga gacan siisay muasasada khayriga ah ee Al-Nur Charity Foundation isla sanadkan 2021 waxa noo suura gashay inaanu ciidsiino 25 carruur ah oo aragga naafada ah inta waxa noo dheer waxaanu si dhow ula soconaa anagoo kaalmo gaarsiinayna dumarka iyo carruurta aragga naafada ka ah kuwaas oo xaalado kala duwan wajahaya waxa kale oo aan wacyigelin u sameeynaa waalidka haysta carruurta aragga naafada ka ah insha Allah waxaan higsanaynaa halkan iyo meel ka sii sareysaba waxaanay ku xidhan tahay
hadba sida aanu taageero uga helo dadkayaga iyo dalkayaga aanu ka dhex shaqeyno waa mahadsantiin waxaan hadalka uga baxay gudoomiye xigeen hadalla waxaa dhammaystirtay agaasimaha ururka Tafbaline Girls Adna Maxamed Cali informationka ururkan ay siisay waxaan halkan u soo istaagay laba kelmadood kelmadda koowaad inaan magaranaysa u mahad celiyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladda iyo kelmadda labaad oo ah inaan baaq u diro cidii aan baaq u diri karo insha Allah haddii aan ku horeeyo kelmadda mahadnaqa marka hore ilaahay baa mahad iska leh inoo suuro galiyay inaynu ka soo qayb galno inoona qabsoonto xafladan quruxda badan ee qaaliga ah muddo badan oo aan ka shaqeynayno ilaa wiig iyo bar gaaraysa haddana alxamdulillaah ilaahay baa mahad leh inay maanta inoo qabsoontay marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa labada xisbiye mucaarad xisbiga wadani iyo xisbiga ucud oo magaranaysaa si qayb laxaad leh nagala qaatay hawshan barnaamijkan aan daahfurnay ee la ciid walaalaha barnaamijkan maaha markii koowaad sidii aadniba soo sheegtay laakiin ciido kale fara badan waan soo ciidsiinay annagoo weliba aan cid ku tiirsanayn ayaan shakhsi ahaan iyo urur ahaan u soo ciidsiinay waxaan u mahadnaqayaa marti sharafta qaaliga ah xildhibaan barkhad jaamac batuun oo ah xildhibaan naxariis badan inta badan dadka nugul barbar taagan isagoo waliba hawshii ay bilow ku tahay imaka haddana aan u hayno niyad sami buuxda waxaan leeyahay waqtigaaga qaaligaadna soo siisay allaha ku sharfo waanan ku ognahay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha jaamacadda Badar Professor Mubaarak Ibrahim Naar oo leeyahay Allah ku sharfo sida quruxda badan ifteeshinka ku soo gaarsiiyay hawlwadeenadaadu nooga soo ajiibtay waliba aad nooga soo horeysay goobta Allah ku sharfan ku leeyahay adigana waxaan u mahad celinayaa walaalaha qaban qaabada ilaa xalay xafladda ka shaqeynayay Shaakir iyo tiimkiisa oo ah tiimka social worker-inta Allah idin sharfay idinkana idin leeyahay waxaan u mahad celinayaa anoo maanta jaaniskan ka faa'iideysanaya walaalaha reer Sweden ee muxsiniinta ah ee isku kaaya xidho afayeenna hawshaadu wadan Allah idin sharfo intii mahad celintu kale intaas ay gaga dhan tahay qof kasta waxaan ku salaamayaa mansabkiisa iyo teetalkiisa aadna waan ugu mahad celinayaa run ahaantii anagu idima arkayno anigii walaalahayga nala dareenka ah ee maanta goobta inagula sugan balse qalbigan idinka dareemayna inaad nala joogtaan anagu ka urur ahaan waxaan mar walba u taaganahay sidii dareenkooda aan kor ugu soo qaadi lahayn haweenka iyo carruurta aragga naafada ka meel kasta ay joogaan wallahi ma jirto hawshan aan wadno midkaaya u baahan balse markii aanu dareenay dadka nala midka inay yihiin dad liita oo halka magaranaysa quraacda loogu keeno cashada loogu keenayo oo aasamoraliba ay u dhinteen ba waxaan anagu jeclaysanay ururkayagan inaan u dhaqdhaqaaqno intaan adduunka ku sugannahay haweenka iyo carruurta aragga naafada ka ah guryaha ku cadilan ee marxaladaha kala duwan ku sugan waxaan mar walba ballan qaadaynaa inaanu diyaar u nahay dadka nala dareenka ah duruuftooda inaanu soo bandhigno intaa kadib kalmadeedii baaqa haddii aan sii wato waxaan baaq u dirayaa shacabka Soomaaliland shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta ah meel kasta ay joogaan waxaan baaq u dirayaa hay'adaha caalamiga waxaan baaq u dirayaa ururada madaxa bannaan iyo kuwa dawliga ah waxaan baaq u dirayaa shirkadaha isgaarsiinta Somtel iyo Telesom iyo magaranaysa baananka waxaan leeyahay hawshii dadka naafada ah wali lama soo faragelin meeshana way ka maqan tahay waa dad xuquuq leh in la barbar istaago waa dad muwaadiniin ah sida cashuurta dadka kale looga qaada la nooga qaada waxaanu jecelnahay inaan xuquuqdeedii helo idinkoo mahadsan waxaan si gaar ah fariin ugu dirayaa shirkadda Telesom barnaamijka aroos wacan way aasaastay waxaanay u aasaastay dad ma garanaysaa bulshada ah oo aragooda qaba laakiin waxaanu jecelnahay inay xuquuqda dadka naafada ah si gaar ah u soo fargeliso mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan baaqayga ku adkaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne xilligii kaambeynka dadka naafada ah way ka qayb qaateen waxay shuruudu ahayd qof kasto miirkiisa iyo maankiisa qaba inuu ka qayb gali karo doorashada imikana waxaan u baahanahay xuquuqdeedii sidii maalinta aan doorashada uga qayb galaynay inaanu hadda u helno waxaan jecelnahay hawsha aan wadno ee tabaruca ifka lagu yahay walaalo ifka wax la isugu taraa ifka la isku heshadaa hawsha aan wadno tabaruca ah in garab ballaaran la nagu siiyo oo nala barbar istaago aad iyo aad badan
بسم الله الرحمن الرحيم. وقرين عن سلام يا هبلها شرفت له وروركا هبلها كلا قيمها بدن النظر كسو قيب قلي وعن سلام يا ولا لهي مروين كحقا فردية runtii haddii doorashadu ku soo bixi lahaayeen dareenkiina runtii si fiican uga turjumi lahaa. waxaan salaamayaa brofesorka macalinkayga mubaarak ibraahim aar. waxaan doonayaa bartan inaan mahadnaqaygoo dhan maanta aan siiyo telefishinada saab iyo home cable t v iyo mm t v. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryayaa telefishinada maamulkooda shaqaalahooda iyo madaxdoodaba mas-uuliyadda iska kiin saareen iyo sidaa mutadawacnimada leh ay idinku shaqeeyeen inuu ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro. aniga xafladdani waxay micno igu samaynaysaa markaan ku tartamayey kursiga golaha wakiilada waxaan ahaa xildhibaanka keliyaata ee ku ololeeyey dadka aragga naafada ka ah, dadka maqalka naafada ka ah, dadka muuqaalka naafada ka ah, saddexdaaba inaan mas-uuliyadahooga gaarka iyo waxay tabayaan aan baarlamanka geyn doono. waxaa aniga mucjiso gaaray ahayd oo dhowr marna aan ka sheekeeyey gabadh maryan la yidhaahdo oo ii codaysay oo naafo ahayd oo bacdii istaagtay oo afartii habeennimo ii soo baxday. hintii habla-aan bartan ay ka sheegeen afarlaabkeed bay maalintaa ii sheegtay. mid idinkaan waxay kaga raba maaha, midaan somalilan magac kaga raba maaha, waa midaan mas-uuliyadda ilaahay uga boqayo. waxaa walaalayaal idiin ballan qaadayaa miisaaniyad kaste oo qaranku leeyahay oo baarlamanka la keeno inaan noqon doono qof si weyn u falanqeeya, qof si weyn uga hadla baahida dadka aragga naafada ka ah, dadka maqalka naafada ka ah, inaan si weyn arrintaa baarlamanka aan uga hadli doono insha allah. haddaydunu dhalaadihiin ma qalbi laydiin. gabdhihii bartan ka hadlayay si gobonimo leh, isku kalsooni leh, qurux leh, sharaf leh, wanaagsan ayay bartan uga garnaqsadeen. madashan aanu ku sugannahayna dadka huteelka bannaankiisa jooga haddayda idinku isarkeen idinkaa ka labis qurux badan, ka muuqaal qurux badan, ka damiir wanaagsan, ka farxad wanaagsan. waxaana sharaf idiina inay idiin yimaadeen walaalo idin jecel oo rag leh oo haween leh oo idin garab jooga oo qalbigaad iska arkaysaan, oo qalbiga idinkuna idinka arkaya, iyaguna qalbiga idinka arkaya. anu waxaan jeclahay barnaamijkan aad bilowdeen waa barnaamij hambalyo leh. albaab kastoo tidhaahdaan nala qaraacana waan idinla qaraacaya, meel kastood u baahataanna waa idinla tegaya. anaa idinka wakiila, anaa idinka mas-uula ilaahay ka sokow, anaa codkiinna ku hadli doonaa, anaa codkiinna qaadi doonaa, anaa wax allaaliyo waxaad tidhaahdaan nala qabe intay tamartaydu tahayba idinla qaban doono insha allah biidni illaahi baari. bartan iminka isaguna waxaanu ku ballansanayn maayarku inuu yimaado insha allaahu, isagana waynu sugaynaa. barnaamijyadan dhowrka ayaad bilowdeen ee xisbiga wicid ilaahay khayr badan ha siiyo faysal oo samafalka kacaan ku ah uu $500 bixiyey. xisbiga wadani guddoomiyihiisuna $1,000 bixiyey. gabdhuhu ay sheegayaan dhowrka qof la iibsiinayo. aniguna waxaan jeclahay siday hablahaygu u qurux badnaanayaan maalinta iidda, siday habareertay u qurux badnaanayso, siday walaashay u qurux badnaanayso, sida hooyaday hadday nooshahay u qurux badnaan lahayd inay idinku u qurux badnaataan ilaahay idamkiisa. waxaan ballan qaadayaa aniguna inaan $300 ku darsanayo oo aan 6 hablood iyagana ka farxiyo oo intay tamartaydu tahay intaa haddaan ka badnaan lahaydna waan ka badin lahaa. ilaahay waxaan idinka baryayaa inuu idin guuleeyo, ilaahay waxaan idinka baryayaa inaad guulaysataan. waxba dhaliisha badani micno ma samayso. kii idin yimaado idin karaameeyaana idinka waxba idinkaga meelaya, ilaahay agtiisu wax kaga helayaa. kii idin dhaartay ee idin ilaawaana ilaahay bay xisaabtiisu u taallaa.
kii idin qiimeeyaana sida dadka imika stageka fadhiya hablahaas iyo inamada idin yimid ay idin qiimeeyeen ilaahay baa qiimeynaya arrintani maaha arrin xukuumad iyo xisbiyo iyo dad gaara iyo barnaamijyada waa arrin dhaafsan waa arrin salka ku haysa insaaniyad waa arrin salka ku haysa islaamnimo waa arrin salka ku haysa damiirsan waa arrin salka ku haysa quruxda iyo bilcinta iyo qiimeynta lafdhabarta bulshadeennaoo haweenka ah waa arrin salka ku haysa horumarkeenna waa arrin salka ku haysa wadajirkeenna waa arrin salka ku haysa midnimadeenna waa arrin salka ku haysa quruxda qarannimadeenna in idinka wax laydin taraa in idinka laydin garbar istaagaa in idinku aad qiimo yeelataan waxay micno u samaynaysaa intaasoo qodoban soo sheegay isma dhiibayno ma quusanayno ma cabanayno ma calaacalayno ha cabanina ha calaacalina idinkaa dadka ugu sarreeya idinkaa ugu sharaf badan garbo wanaagsan baad haysataan idinla dareena dad idiin soo jeeda maanta mar labaad baan ku celinayaa baarlamanka dhaqaale ma dhex yaallo laakiin codkiina in la qaado baarlamanka la dhex geeyo xeerarka idinka idin anfacaya danihiina in laga hadlo maalin laydiin yeedho baarlamanku idin dhegaysto oo gabdhihii bartan ka hadlaye wanaagsanaa uu shirgudoonka loogu yeedho baarlamanka ay ka dhex doodaan miisaaniyadda marka la keeno maxaa dadka naafada ah ugu jira waxa koowaad ay noqoto oo aan duuduub lagu ansixin oo hargeyso keliyata aan la eegine inanta sanaag joogta aragal ah iyo inanka laascaanood jooga iyo ka boorama jooga iyo ka lowyacada jooga iyo ka laasqore joogaba miisaaniyaddu ay taabato ay gaadho oo ay noqoto wax decentralization oo hoos u dhaadhacda ayna meel gaara ayna ku baabi'in ayna inagaga baabi'in meelo bahalkiina in meelo aan loo baahnayn ay gasho laakiin meesha loo baahay idinkaad noqotaan haddii aan inanta ugu horeysa aan ku horeysiiyo magaceeda waa xamda caawiye xasan xamda caawiye xasan walaashay xamde xuseen xasan walaalo waxaan ku guddoonsiiyey lacag ah $50 labaatanaad iyo $10 iga guddoon waanu ku socon doonaa inanta xigta waxaan jecelahay inay laba hablood oo walaal ah ay yihiin waa nimco caawiye xasan waxaana la guddoonsiin doonaa lacag dhan $50 nimco caawiye xasan walaalo lacagta $50 iga guddoon nimco caawiye xasan waa gabadh aragga naafaka socon doonaa waqtigu waa kooban yahay hablaha barotokoolka inoo yaro dhaqsadaan waxaan ku xigsiin doonaa inanta saddexaad muuna baashe xasan muuna baashe xasan muuna baashe xasan iyadana waxaa la guddoonsiin doonaa lacag dhan $50 muuna baashe waa gabadh aragga naafaka waxaana iga guddoomi doontaa lacag qadarkeedu yahay $50 muuna iga guddoon waynu ku socon doonaa waxaan u yeedhayaa inanta afaraad ayaan maxamed cabdi ayaan maxamed cabdi ayaan maxamed waxay iga guddoomi doontaa lacag qadarkeedu yahay $50 iga guddoon gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 uu ii soo idmaday ururka hablaha aragga naafada ka ah ee tafbalayn geeralis qabo asma waxaa soo raaci doonta malyuun cali aadan malyuun cali aadan malyuun cali aadan nimco cabdisaleema waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 oo ururka tafbalayn geeralis ii soo idmaday qabo malyuun cali aadan waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 ururka tafbalayn geeralis ayaa ii soo idmaday oo ku soconaynaa waxaan u yeedhi doonaa ikraan faysal xasan ikraan faysal xasan waxaa kaloo raacin doonaa saare sharaf maxamed warsame saare sharaf maxamed warsame ikraan faysal waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag $50 oo ii soo idmaday ururka tafbalayn geeralis iga guddoon walaal macaan
sahra waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 oo ii soo idmaday ururka hablaha aragga naafada ka ah ee Tafbalan Gaaralis walaala sahra iga guddoon. shukran xabiibti aad baad u mahadsantahay. waxaan jecelahay in tiimka brotokoolka ay gacanta noo yar fudeydiyaan. waxaan ku xigsiin doonaa Khadraa Cali Axmed waxa kaloo soo raaci doonta Asma Ahmed Maxamuud cali axmed waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 qadra iga guddoon. samsam cabdi cali waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 samsam iga guddoon walaalo. deeqa xasan maxamed waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu dhan yahay $50 uu idmaday ururka Tafbalan Gaaralis. nimco xaashi waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 nimco iga guddoon. waxaan u yeedhayaa Hibo Caartan Faarax waxaa kaloo soo raaci doonta Ayaan Siyaad Xaashi faka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 hibo iga guddoon. waad mahadsantahay. ayaan siyaad xaashi waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 ayaan iga guddoon. ayaan siyaad xaashi waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 ayaan iga guddoon. adigaa munoolaal hoodo cabdi aadan waxaa kaloon raacin doonaa Ayaan Xariir Cabdi hooda cabdi aadan waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 aad iyo aad baad u mahadsan tahay. ayaan xariir cabdi waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 ayaan iga guddoon. waad mahadsantahay walaal qaale. fardowse cabdilaahi waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 walaal fardowse iga guddoon. habboon cumar cabdilaahi waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 walaala habboon iga guddoon. xaliimo waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 xaliimo iga guddoon. deeqa muuse jaamac waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 deeqa iga guddoon. muune cabdilaahi waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 iga guddoon walaala muuna. waan ku soconaynaa waqtigu waa kooban yahay iminkiyo haatan waxaan u yeedhayaa Leyla Mawliid Maxamed. leyla mawliid waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 leyla iga guddoon. asma mahdi waa gabadh aragga naafaka waxaanan guddoonsiin doonaa lacag qadarkeedu yahay $50 asma iga guddoon. waad mahadsantahay walaal. nimco xaashi axmed runtii waxaan idinka mahad celinayaa sida wanaagsan aad noogala soo qayb gasheen. kelmadda xidhitaanka waxaan kusoo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka xamda cabdi sogsog.
barnaamijkii la ciid walaalaha oo dah furay ururka hablaha aragga naafada ka ah ee Tafbaline Girls. barnaamijku waxa uu daarnaa ciidsiinta 30 hablood oo aragga naafada ka ah 24 hablood isla goobta ayaa lagu gudoonsiiyay inanta 25aad waa inan double disability waxaan ugu tagi doonaa gurigooda insha Allah. shanta hablood ee kalena waa shanta hablood ee hawlwadeenada ah guud ahaan intaas waxay noogu dhamaaday barnaamijkii la ciid walaalaha aan ku ciidsiinaynay 30 hablood oo aragga naafada ah waxaan naga xasuusinaa barnaamijka doorkan inay naga gacan siiyeen labada xisbi mucaarid xisbiga Ucud iyo xisbiga Wadani oo iyagana aad u salaamayo ugu dambeyn waxaan halkan uga mahad celinayaa maamulka Hotel Imperial oo howlkan quruxda badan ee maanta hawshii noogu qabsoontay si tabaruc noo siiyay sidoo kale waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaq oon leeyahay goob kasta aad ku sugantahay waqti kasta aad joogto Allah ku sharfo hijinka ururka uu ka dhaqaaqo walaalkay Saciid Axmed Sulub oo isagu ka cudur daartay maanta inuu goobta nagala soo xaadiro balse ilaa tan iyo maalintii ururka aan aasaasnay walaal garab ballaaran noo muujiya oo nabar taagan Allah ku sharfan walaal ku leenahay intaynu ku kulmi doono barnaamijka xiga waa tiimkii Tafbaline Girls oo idin leh